xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaanle ayaa warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeed ka soo baxay golaha wakiilada Soomaaliland waxaana uu faahfaahin ka bixiyay war-saxaafadeedkaasi iyo waxa uu daraa waxaana uu yiri bishii toddobaad 13 bishii toddobaad 2020 waxa gudoomiyaha golaha wakiiladu ku wareejiyay guddiga arrimaha gudaha mashruuc sharciga xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha oo 2018 la keenay xeerkan oo ah xeer aad u ballaaran oo qaranka iyo shacabka Soomaalilandba kay sugayeen ah marka laga yimaado xeerarka ugu muhiimsan ee qarankan uu leeyahay marka laga yimaado xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka iyo xeerka nidaamka garsoorka xeerkan waa xeerka saddexaad ee qarankan u baahan yahay xeerkan wuxuu ka kooban yahay ilaa 4 xeer ba isku jira oo doorashooyinkii lagu mideeyay tii golayaasha deegaanka tii golaha wakiilada tii madaxtooyada tii guddiga doorashooyinka qaranka iyo tii codbixiyayaasha iyo qoondadii haweenka iyo dadka laga tiro badan yahay waa xeerkii mustaqbalka xeerkan marka xeerkan ayuu maanta gudoomiyuhu wuxuu ku wareejiyay guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca wuxuuna u qabtay idinkoo aan ogtihiin inuu sabtida furmayo goluhu inuu isniinta keeno xeerkan oo waajib ka dhigaya in golaha wakiiladu ay ka gutaan waajibaadkooda sharciga maadaama ay yihiin xeerkii lagu dooranayay kii madaxweynaha lagu dooranayay kii golayaasha deegaanka lagu dooranayay isla markaa gudoomiyaha golaha wakiiladu isagoo qodobada dastuuriga gudanaya iyo xeerkan oo uu soo gudbiyay madaxtooyadu ay soo gudbisay oo ay priority-ga la siiyay xeerarka madaxtooyadu ay soo gudbiyaan wuxuu maanta ku wareejiyay guddidana wuxuu qabtay inay isniinta keenaan xeerka sidaad la socotaan maanta gudoomiyuhu wuxuu kala shiray oo halkan xafiiskiisa ugu soo booqday haweenweynaha Soomaaliland oo ka hadlayay qoondadii haweenka wuxuuna u ballan qaaday sida xeerkaas qorayo inuu ansixin doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.